dhawaada channelkeena caafimaadka bulshada oo mar walba kala socotaan waxyaabo ku saabsan caafimaadkeena iyo caafimaadka bulshada mar walba waxa halka aan kala socodsiiyay anigoo ah Mariin Axmed Aadan khayr maanta waxa ka hadli rabaa sida loo dhiso jirka difaaciisa sida difaaca jirka uu kor ugu qaadno hadii aad dareemayso marar badan hargab uu kugu soo laalaabto hargabka si isdaba joog bil walba uu hargab kugu dhaco ama dhuun xanuun haduu dhuun xanuunku kugu soo laalaabto sidoo kale infection skinka ku dhaca ama maqaarka infection haduu mar walba kugu soo laalaabto waxa macquul ah inuu yar yahay difaaca jirkaaga si marka wadada ugu wanaagsan oo difaaca jirkana kor loogu qaadi karno waxa waaye inaad cunto isku dheelitiran iyo cunto caafimaad qabta si jirkeenu uu kor ugu qaadmo difaaciisu waa inaan cunto isku dheelitiran iyo uga hortagno cudurrada waa inaan immune systemkeena kor u qaadno ama difaaca jirka kor u qaadna mar walba difaaca jirka kor u qaadidna waxa yaraanaya infectionkii baa yaraanaya jirkaaga u soo galo sababtoo jirkaaga markuu culayska bato difaaca jirkaaga wuxuu la dagaalayaa infectionka banaanka imaanaya waxaan laga yaabaa macquul ah inuu ka guuleysto infectionkaas oo cudurkii jirka dhexdiisa uu ku baaba'o asagoo qofku calaamadihii isku dareemin marka waxaa jirta fitamiino badan fitamiinada dhanna waxay u wada fiican yihiin kor qaadida difaaca jirka u wada fiican yihiin sida fitamiin C oo kale fitamiin C wuxuu ka qayb qaataa qayb weyn dhismaha difaaca jirka qofka fitamiin C giisa uu yar yahayna waxa laga yaabaa in cudurrada ay ku soo laalaabtaan ama uu mar walba ku dhacaanba oo cudurkii uu nugul yahay marka fitamiin E oo kale wuxuu yareeyaa qashinka yareeyaa marka fitamiinada dhan waa u fiican yihiin fitamiin C fitamiin B asagana waa u fiican yahay marka waxyaabaha video waxa uga hadli rabaa dhowr ay cunto oo u fiican jirka difaaciisa si looga hortago cudurrada cuseebka kuwan hadda COVID-19 ama cudurradii hore oo jirba si jirkaaga uga hortago waxa ka bilaabaya waxyaabaha cudurka ka hortaga waxa inaad biyo badan cabto biyo badan sida ogtihiin biyaha waxa waaye wax biyo la'aan ma shaqeeyaan adduunka biyaha waxay ka qayb qaataan difaaca jirka biyaha waxay qaadaan oxygen-ka ilaa waxay geeyaan systemkoona biyaha ku shaqeeya biyaha marka waxay kala sameeyaan qofka wasaqdi waa ogtihiin biyo badan marka cabtiin mar walba uu qofka biyo badan cabo jirkiisa qashin saar buu sameeyaa oo biyihii waxay ayagu suntiisii jirka ku faafin ama wasaqdi jirka fariisanin bay biyuhu qaadaan oo qofka kaadi camal ay u soo imaataa iyadoo wasaqdi mar walba biyaha qofka jirkiisa ay ku yar yihiin wasaqdi jirkiisa ay fariisataa oo ku faaftaa jirka laakiin marka qofka biyo badan cabo zaid biyuhu hoos uga imaanayaan oo qofkii wasaq jirkiisa ku maharayso ama infectionkii ama wasaqdii ayadoona jirka ku tarmin baa soo qaadaya oo kaadi bay noqonayaan waxa kale oo kamid ah liin balmeelma inuu qofka cabo liin balmeelmada aad ay u fiican tahay balmeelmada fitamiin C baa ku jira aadina ugu fiican marka saddexaad waxa spinach waxa waaye qudaarta cagaaran sida cagaarka greenska waxa la dhaho spinachkaas aad u fiican yahay waana wuxuuna ka qayb qaataa waa hodan wuxuu ku yahay cunto caafimaad qabto way 100% sinjibiisha kamid ah sinjibiisha waxa ogtiin daawooyin badan in laga sameeyay waxay u fiican tahay dhuunta qofka markay xanuunto ama dhuun xanuunka cudurrada hargabka uu kamid yahay ama COVID-19 kan hadda jira waxa u fiican oo la cabo gingerkaas dhuunta way sifeysaa waxa waaye waa kulushahay jeermiska dhan way sii qaadataa jirkana waxay ku sameysaa qashin saar kiliyahana way la shaqeysaa oo jirka mar walba qofka sinjibiil cabo wasaqda jirka waxay toxinka jirka ku jirta way yaraanaysaa oo ay ka baxaysaa jirka sidoo kale toonta kamid ah ayadana toontana aad u fiican tahay toonta waxa waaye waxay ku jirtaa fitamiinadani ku jirta waxaana ay ka qayb qaadataa difaaca jirka bay dhistaa waxa intaas oo dhan waa natural medicine waaye waa dabiici ah intaas oo dhan marka walaalayaal si qofka uu jirkiisa kor ugu qaado ama waxyaabaha kale oo ka qayb qaadan kara marka fitamiinadaas lagu soo tago qofku waxa jira inuu asagana jirkiisa uu dhisi karo ama jirkiisa uu waxa jirta waxyaabo kale oo qofku immune systemkiisa uu kor ugu qaadi karo ama difaaca jirka uu kor ugu qaadi karo waxa kamid ah qofka inuu sigaar cabin sigaarku wuxuu ka qayb qaataa wuxuu yareeyaa difaaca jirka sidoo kale inaa cunto oo isku dheelitiran oo u badan vegetables ama fruit u badan khudaar iyo miro u badan waa inaad isticmaashid mar walba khudaarta isticmaashid waxa difaaca jirkaaga kor buu u qaadmanaya waxa kale oo ah exercise inaad sameysid
exercise markaa sameysid wasaqda jirka qashin saar buu sameynaya, waxa yaraanaya inuu infectionka jirkaaga u soo gudbo, sababtoo ah jirkaaga markuu dhidido wasaqda ka timaado oo wixii jirkaaga ku jireen cuntadii wixii xeertii wixii ay shiilmaan waxa yaraanaya, qofka cudurkii ku dhacaya hoos buu dhacaya sababtoo ah wasaqda dhan uu iska soo saaray waxna dhiid bay noqdeen. Marka waxa kaloo sameyn kartaa inaad culeyskaaga aad miisaantid, miisaankaaga inuu noqdo miisaan caafimaad qabo, in iska cayilan tahay ama qofku marka qofku iska cayilan yahay ama cudurrada halis buu ugu jiraa cudurro badan, marka inuu miisaankaaga uu yahay miisaan caafimaadka qaba ama miisaanka zaidna u weynayn zaidna u yarayn oo miisaan dhexdhexaad u yahay oo miisaanka caafimaadka qaba. Waxaa la dhahaa qofka inuu miisaankiisa meeshii oo ugu fiican uu joogo, inuu zaid u weyn yahay oo mataqaana kiilooyinkiisa ay badan yihiin iyo inay yar yihiin lama rabo, dhexdhexaad inuu yahay way qofka bini'aadamka haydkiisa iyo miisaankiisa inuu halbeeg la isku cabiraa jirto oo qofka. Waxaa kaloo jirta in qofku si uu uga hortago cudurrada waxa waaye inuu seexdo hurdo ku filan, hurdo mar walba seexatid hurdada waxay yareynaysaa cudurrada jirkaaga soo geli lahaa bay yareynaysaa. Marka si aad uga hortagtid cudurradaas waa inaad mar walba gacmahaaga dhaqataa. Waxaa kaloo sameyn kartaa si aad cudurrada uga hortagtid inaad mar walba gacmahaaga dhaqataa iyadoona COVID-19 kan kaligiis waxaa jirta loo dhaqanayn gacmaha, waxaa jirta cudurro badan oo dadka saameeya. Marka cudurradaas oo looga hortagoodu u yahay gacmaha la dhaqdo, waxaa kamid ah cudurradaas oo qofka mataqaanaa gacmo dhaqa la'aanta u soo dhexgeli kara oo qofka hadduu gacmihiisa dhaqleen cunto iska cuno ama jirkiisa ku taabto. Waxaa kamid ah cudurradaas typhoidka, cudurka loo yaqaano tifowga ama cudurka loo yaqaano koleeraha ama daacuunka. cudurradaas oo dhan waxay ka dhashaan nadaafad darrada. Maanta intaas niyo ogyahay. Assalaamu calaykum.